وكوب يتبان كي برقنمو waxa aan joognaa magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal waxaan u kicitimaynaa deegaanka xeebaha gobolka Awdal gaar ahaan magaaladii xadaaradda iyo ilbaxnimada ahaydna afaafkii diinta islaamku ka soo gashay geeskan Afrika taasoo ah magaalada Saylac marka aad ka baxdo magaalada Boorama ee aad ku sii jeedo deegaanada xeebaha gobolka Awdal waxa aad sii maraysaa wada dheer oo raf ah taas oo leh buur iyo banaan iyadoo ay ku xeeran yihiin qataro badan markaasba maskaxdaadu waxa ay isweydiinaysaa soo noqoshada dambe sida ay noqon doonto haddii Allah awoodda leh markaa ogolaado haddaba intii aan ku guda jirnay socdaalka yaga ee aan ku wajahnayn xeebaha gobolka Awdal magaalooyinka aan sii marnay waxa kamid ahaa magaalada Boon oo ah magaalo taariikhi ah taas oo caan ku ah hilibka loo yaqaan solayga kaas oo ah hilib duban iyo noocyada kala duwan ee caanaha xoolaha iyadoo ah magaalo beere iyo xoolo labadaba leh شغا يقولي أدوني ولا شدك القعبي ورني بيريقا قلي أم ببحة تلا بدا أني رجال inkasta oo wadadani ay tahay mid raf ah taas oo gaarigu aanu socon karin inta badan xawaarihii loogu talagalay ayaa haddana dadka gobolka intooda badani waxa ay qabaan in ay maalin riyadoodu rumoobi doonto taas oo ay arki doonaan wadadan oo laami ah soo aragtideedii intuu dooni maya anna soo ugu kayga maqaniigi anna soo inkasta oo gobolkani yahay gobol qani ku ah xagga beeraha xoolaha iyo kalluumaysiga ayaa haddana waxa aad arkaysaa in uu leeyahay dixo waaweyn oo biyo mareena ah kuwaas oo aan sidii la rabay looga faa'iideysan iyagoo biyuhu si sahal ah ku dhaafo markaa سقطك شيخي الكميو أبادرو سرور عشقه deegaanka fardaha ama farda lagu xid oo kamida deegaanadan gobolka Awdal ayaa kamida deegaanada leh dixaha waaweyn ee biyo mareenada ah deegaankan oo aad u qurux badan ayaa waxa uu ku caan yahay beeraha iyo xoolaha labadaba aad la sheekaysato dadka deegaanka ayaa waxa ay ku sheegayaan in ay u baahnaan lahaayeen taakulayn xagga agabka beeraha ah maadaama dhulku uu yahay dhul biyood ayna soo saari lahaayeen midhaha kala duwan ee beeraha kuwaas oo wax ka tari lahaa cunno yaraanta jirta tan deegaanka iyo tan gobolka labadaba indheer garad waxaa jira talaluugaay waa oday ka sheekay abata qadunteediyo afkibaax jacay galay waana haddaba dhulka bannaanka ah ee gobolkani leeyahay waxaa ka mid ah bannaanka weyn ee loo yaqaano banka Giriyaad dhulkan ayaa ah dhul baaxad leh isla markaana gaarigu uu soconayo muddo saacado ah dhulkan ayaa heerkulkiisu aad u sareeya bilaha qaar iyada oo gawaarida xamuulka iyo kuwa kaleba ay maraan habeenkii iyaga oo ka doorbidaya maalintii oo heerkulku aad u sareeyo
maaganoy awaada ma jiibsadoy waa 6 subaxnimo waxa aan joognaa magaalada Saylac oo aan ku soo hooyanay xalay 10kii habeenimo waa magaaladii aan uga soo kicitinay xaruntii gobolka Awdal ee magaalada Boorama magaaladan oo ahayd bariyaha qaar caasimadii geeska magaaladii ilbaxnimada haddaba cadceedu markii ay soo baxday ayaanu waxaanu u kicitinay dhinaca iyo gudaha magaalada si aanu u soo daawano asaarta qadiimiga ah ee magaaladani caanka ku tahay iyo xeebta dheer ee magaalada ku teedsan intii aan ku guda jirnay daawashada asaarta qadiimiga ah ee deegaankan degmada Saylac ayaa indhahayagu waxa ay qabteen dayactir ballaaran oo lagu sameeyay dawladii hoose ee hore ee degmada Saylac taasoo uu dhisay Allaha u naxariiste Xasan Xaddi Qayaad sanadkii 1957kii magaaladan oo ah mid taariikh dheer leh taas oo ku suntan buugaagta taariikhda ee taalo librariyada caalamka maanta ayaa marka aad aragto muuqeedu waxa uu ka turjumayaa dadka maanta nool waxyaalaha kale ee magaalada Saylac aad ku arkaysa waxa kamid ah goobtan oo ah goob xabaala ah waxa loo yaqaanaa Sharambila magacan ayaa hore loo oran jiray xaafadan ay ku taala xabaaluhu waxa kale oo loo yaqaanaa xabaalahan Cabaasiyiinta kuwaas oo ahaa asalkoodu dadka ku aasan halkan dad ka yimid dalka Ciraaq una yimid magaaladan Saylac in ay ku fidiyaan diinta Islaamka iyagoo isla markaa dadkii magaalada deganaa ee Soomaalida ahaa iyo dadkaasi uu dhaxmaray iska horimaad magaaladan Saylac ayaa ah meelihii ugu horeeyay ee qaaradan Afrika ay soo gaadhay diinta Islaamka taasoo cadeyn ay u tahay masaajidkan idin muuqda ee loo yaqaan qiblateynka kaas oo leh laba qibladood labadan qibladood ayaa qibladii ay u jeedaa Kabcada oo haatan loo tukado halka tan kalena ay u jeedo Baytul Qudus oo loo tukan jiray intii aan nabigeena naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee aan la farin inuu dadka u tujiyo dhinaca Kabcada inkasta oo markii aan booqanay masaajidkani uu quful ku jabsanaa oo aan lagu tukanaynin ayaa haddana waxa ka muuqda dayac aad u xooggan isaga oo qabyo ah
magaaladan Saylac ayaa waxaa lagu xasuustaa inay xarun u ahayd boqortooyooyinkii Ifaad iyo Adal boqortooyooyinka oo muddo dheer xukunkoodu ka talinayay geeskan Afrika waxa kale oo magaaladani ay soo wajahday dagaalo badan kuwaas oo ku salaysnaa xagga diinta magaaladan oo saldhig u ahayd diinta Islaamka ayaa dagaaladaasi waxay mar walba kaga imanayeen boqortooyooyinkii Kiristaanka ahaa marka aad dhex socoto magaalada ayaa waxa aad arkaysaa dhismayaashii hore ee qadiimiga ahaa kuwaas oo intooda badani dumay iyagoo uu ka muuqdo dayax xooggan inkastoo oo ahayd in la ilaaliyo ayaanay arrintaasi suurtagelin magaaladan Saylac ayaa ahayd marin ganacsi oo aad muhiim u ah taasoo isku xidhi jirtay ganacsiyadii ka imanayay wadamada Carabta, Hindiya iyo Bariga Fog iyadoo shixnadahaasi magaalada Saylac lagu keeni jiray doonyo kadibna loo gudbin jiray Ethiopia gaar ahaan magaalada Herar dhammaadkii qarnigii 7aad ayaa magaaladan waxaa wax ka qoray qoraagii la oran jiray Al-Yacquubi isaga oo sheegay in ay Saylac ahayd magaalo weyn oo ay degan yihiin dad Soomaali ahi magaalada ayaa waxa ay leedahay xeeb dheer oo ku teesan taasoo marka aad aragto ay indhuhu soo jiidanayaan adigoo mararka qaarkood arkaya kalluunka oo si dhow biyaha u dul jooga sanadku marka uu ahaa 1331 waxaa magaaladan Saylac yimiday badmareenkii iyo qoraagii caanka ahaa ee u dhashay dalka Morocco kaasoo la oran jiray Ibn Battuta sida uu ku sheegay buugiisa lagu magacaabo Al-Buldani isaga oo markaa ka soo kici timay dalka Yemen inda aan kala waharin nafaan isbawaarin laba aan kala weecan muuqaalkan hadda aad daawanaysaan waa afaafka hore ee magaalada Saylac laga soo galo halkaas oo uu ku yaala doox weyni marka aad soo gaadho halkan ayaa sheeda waxa aad ka arkaysaa banaanka weyn ee ballaaran ee magaalada ka sokeeya iyo sheeda oo ay magaaladu markaa kaaga muuqato xeebta dheer ee magaalada ku teesan ayaa marka aad joogto indhahaagu waxa ay soo jiidanayaan nadiifta biyaha adigoo sanka la raacaya naacawda qabow ee ka imanaysa mawjadaha badda ee islaba rogaya muuqaalkani waa dekada magaalada Saylac dekadan ayaa ah mid iyadu qarniye jirtay inkasta oo ay shaqaynaysay marxalado badanna ay soo martay ayaan jirin wax dayactira oo lagu sameeyay tan iyo haatan inta la garanayo sanadihii 90meeyadii ayay dekada magaalada Saylac waxa ay ahayd meel shaqo ballaaran ka socoto taas oo ganacsiyo ballaaran ay ka socdeen halka iyadoo ay ka imanayeen wadamada Carabta gaar ahaan dalka Yemen inkasta oo haatan aanay jirin wax dhaqdhaqaaq ah oo ka socda marka laga reebo kalluumaysato yaryar oo dadka deegaanka ah ayaa hadii dib loo hawlgeliyo dekadan
waxoogaa dayactirana lagu sameeyo ay ka qayb qaadan lahayd horukaca dhaqaale iyo midda ganacsi ee gobolka iyo dalkaba. wadana iyo beerka albula iswaraabashan wadagna jacay sida la og yahay dadkan ka soo jeeda deegaanka degmada Saylac ayaa iyagu xirfad gaar ah u leh samaynta cuntooyinka kala duwan iyadoo bariyaha qaar lagu xasuusto bariiskii caanka ahaa ee la oran jiray surbiyaanka kaasoo ay caan ku ahaayeen dadka reer Saylac. haddaba intii aan joognay magaaladan ayaanu waxaanu tagnay goob lagu sameeyo kalluunka noocyadiisa kala duwan iyada oo loo sameeyo si aad u macaan oo ka duwan siyaabaha meelaha kale looga sameeyo. markaaga waraaqshay ay wadeeca ku taabtay وانا كان واحد يسعد قبلي وانا كان والله رئيس سلعه كلمه وانا كان يبيه وين نوع انا كان واحد الابيض يا وانا اقول في عام يدك على قهره بيض كريم يا سجلت منو اركتها وكا سجلت انا سلام طبعا والله هي حاج بالواحد شقتها كلوك السيلع محو كدوي كلوندا كله wuxuu kaga duwan yahay kalluunada kale kirsiga badda la yiraahdo ka kalluun caadi baraha sida anaga gaar ahaan waxa la yiraahdo ka soo kala badda oo dhani way furiyiin doox la galo doox ma yahay badda gala oo sida badda gelin ma jirba imiga lagu hayo kale marka joogto badda doox ila bilbara waxa ugu dambeeya doox fuqaha la yiraahdo waxa doox badda gala ya waaheen wixii ka sheegay kalluunka ugu adkaada oo ma sameeyo ma yahay suuq badan ma sameeyo laakiin kani waxa weeyaan wuxuu haystaa nafaqadii barigoona baa badda gasha inta soo noqday waxa ugu fiican sida laga helo marka intee lag bad ka shaqeynayay waxaan ka shaqeynayay muddo 20 sano ana afar tajriba anahay anigoo 20 tajriba kala badda ya ilaa imika waan ka shaqeeyaa ya marka waxa weeyaan waa wax khayraadka badda oo xalaal weeyaan ya waxa laga shaqeeyo waxa ugu fiican laakiin waxa ilaahay keenay wasaaradii kalluumaysiga oo garanayba maxay ahayd nidaamkii badda oo nagu dartay kalluumaysigiiba waxay nagu dartayba wasaaradii ariga nagu dartayba ya wasaaradii ariga ay nagu dartay badda waxa la doonayay in la tartanto bariga oo dhan ya la rabaa haweenka baddu in bariga oo dhan la tartamo ma la rabaa laakiin maxaa dhacay in wasaaradii ay nagu dartay barigiiba ya marka taasi ma jirta ya aqoon darrada Soomaaliga ka saxaga badda ya laakiin ana ku soo kaliya laga macaash